waxay keeneen bikheer cadaaladda ingiriisku boqolkiiba boqol waa kalsooni lagu qabaa dadka o dhan wuxuu yihi Britania bikheer ingiriisku waa ubad qabaa ha u cabsoonin buu maxaa yeelay cadaaladda xoolaha keenay laakiin xooluhu cadaalad ma keenaan cadaaladdu iyada xoolaha keenta إلهنا مركز سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان محول لي هرت أمني هلا هلا أمني محو كان يحصلوني حصلوني ما كان سا حوالي كان سا ما الحصلوني كجر حول ما يمنع ولذلك محول الإمام الغزالي رحمه الله أوفر علماء عادي ما هن حديث ما كشرحين الإمام الغزالي رحمه الله شيخ أكاديميها وجامعيها مركو حد جاي محول الإمام الغزالي رحمه الله لا دولة بلا إمارة دولة ما جرتوا هدو جرين شيف دولة ما جرتها بلا شيف ما جرت كريسو ولا إمارة أميرنا مجري يبوري بلا جند دو عينا ودك جري وياني أمني أوكي ولا جندنا مجري يبوري بلا هدو يجري ويدو العاقل أسكت العقل سيادي لي وي وعيك شغالي عند ما في سبيل الله معيدك إسلام كاده هذا رسيس عنها مركب العقاتان ولا مال مجري يبوري بدون تجارة وصعوا هدو بيع مش رجل وي وإن سوق بزنس وإن حر هذا ولا تجارة نجري كريم يسبوري بلا عدل هذه عدالة نجري ويدو اوكي ما اساس كنا قدركاس عدالة انت waxa ka daray nin baa u soo diray Umar ibn Abdul Aziz wuxuu Umar magaalada Simarqand baa madax ka ahay aduguna boqorkii baa tahay magaaladii waxa ku batay tuuginta habeenkii u soo daata waxaan doonayaa inaan deer dhiso si magaalooyinka bigoor deeran ku dooriyo marka deerkaas waxaan rabaa inaan kaga ilaaliyo marka tuuginta maxaa rabtaa miisaaniyad baa rabaa ilaa boqorkii soo dir lacag budgetkii soo dir waraqad buu qoray wuxuu xasinha la bisur walakin bil adl magaalada deer uga darbiga waxa uga taabuli cadaalad iska daawuli gidarka darbi hadhisin ee cadaalad dhis خلاص marka tuujiri maayo buu okay marka limaada abu islaam ku yiri xal warmay macna sadaqadii soo kala xal soo qaataan ta'dilu bayna اثنين صدقه افضل عباده الله قبط marka waa maxay ikhwani fillah fi dunya waa maxay fadliga cibaado ugu fadli badan ilaahay lagu caabudo adduunka ma garanaysid waa cadaalad iyo irsaas nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskii muxuu ahaa todobada ilaahay maalinta qiyaamaha u hareynay maxaa u waray malikun imaam caadil تضبط قيامها الله هرنيو لمبر 1 محاكاه بقر عادله فضل اعانه الناس فضل المعونه فضل التعاون انت بان كرا اسغرغارك فضلك كجرا وحسلا قبدك قفك او كايتال درن yahay ina loo dhawaado wax loo taro oo ninka uu ka xoog badan yahay xoogiisa u galiyo ilaahay maartay khalqigiisa subhanahu wa ta'ala inta soo ciwaan xadiiska waa sikrana insha Allah ta'ala marka xadiiska waxaan siinay saddex ciwaan haduu ilaahay yiraahdo subhanahu wa ta'ala okay xadiiska marka labaad waxa inoo wariyay أبي هريرة هران أصرني كل ما بينه وصحابي قال تاريخ دي سيري سواء كسر شكلي إن شاء الله تعالى. إن حديث كبركة محل إنه جرا إخواني في الله حديث كوحة كجرا ونسيتها جينا أفر إلا شرع الوقت كو مركب جوا الرئيس وحنسيتها جينا وحويان حديث كان لفظ كان ما هنا ألفاظ فربنا بكوي مدي حديث كان وحنوري أبي هريرة حديث كان من أدو ألفاظ كان كسر أروتنا وحوري أبي ذر كان يوحى كسر أروري بخاري مسلم كان روح كسر أروري مسلم صحيح مسلم يقص أرورين كل جيسو مركا حديث كلو عاشة ورنا ساجرة رضي الله عنها ويضنا مسلم ورنا يو وعاشة حديث والنبي كله صلى الله عليه وسلم إلهي بني آدم كوحو أبوري وكو أبوري صدح بقول يلي حدا حبن صدح بقول يلي حدا لفون وارد عظمي ولا هو معني مركا صدح بقول يلي حدا كمفصلي مفصل والبابا وحو ليهي إنا أجر شقديسي لو قبته إلهي لو قبل مري سبحانه وتعالى marka mawduuca xadiiskaasina waa soo arooray isaguna waa alfaad badan laakiin macnaha ugu weyni xadiiskan buu ku jiraa insha Allah ta'ala waxa kale oo muhiim ah inaan xadiiska gelin aan sheego inaan ciwaan afraadna aan qaadan karno oo Maxamed al-Muslih sheekh raadado culimada casriga uu siiyay oo ah wuxuu yiri xadiiskan anaawintan aan sheegnay waxa uga fadli badan ba in la siiyo fadlu shukri in ilaahay loo mahadnaqo ala ni'amihi ni'madu ilaahay ku siiyay marka ni'madaha ilaahay ku siiyay xadiiska waxa ku jira jirkaagii caqligaagii itaalkii xoogii ilaahay ku siiyay socodku ku qadaray waxa soo dheeraad mahadnaq ilaahay ka siiyay subhanahu wa ta'ala marka fadlu shukri ilaahay loo mahadnaqo fadliga ay leedahay subhanahu wa ta'ala okay ikhwani fillah waqfadina koobaad kullu sulama min an-nas alayhi sadaqa kullu sulama wa maxay sulama lafdiga sulama waa af carabi weeyaan macnaheedu fara badan bay qawaamista carabiga ay dhigayaan لحديثان النبي إلى النبي إلهي وحو قصة صاري ماشي أف عربي وسكوي بدي وعلماء واحد هذا مركب أفك لباريو لقطها مركب لباريو لقطة أجو برواقي سنة أجو جندارة أجو ألفاظ بدن أجو مصطلحات بدن أجو أرهية بدن أجو مفردات بدن واللقطة مركب علماء ما هي إسلام كي عربتها ما حتى مستشرقين تسجيل جولة تسعة وكليم وحيسوا صارين جارين
inay tahay af carabigu waa afka koobaad oo af adduunka la mid ah maaragtay hodannimada uusan jirin. halkee keenay marka iyagu waxay leeyihin matalan af carabigu marka qawaamiista lagu noqday afafka ugu badan maanta 600 oo kun oo eray 500 oo kun oo eray iyay gaadhayaan. laakiin afka carabiga waxaa la helay in ereyadiisa markii la ururiyey lisaanul carab isagu inta ururiyey saa uma sii badno, laakiin marka ereyadii af carabiga wixii ku soo aroor dhan la ururiyey waxay dhahdeen waxay gaadhaysaa wax ku dhow 8 milyan oo kelmadood. marka 8 milyan oo mufradood af ay ku jirto uu yar yahay. walidaalika buu ilaahay yidhi allahu aclamu xayثu yajcalu risaalatahu, ilaahay baa og meeshuu risaaladiisa dhigaya subxaanahu wa tacaala. hadalkiisa qur'aanka ah kitaabka ilaahay oo qur'aanka ah luqadii xambaari karaysay ilaa waa qur'aanku wuxuu oolayaa ilaa qiyaamuu ka dhacay. diinihii hore waxay ooli jireen inta uu nebiga laga soo baxayo, laakiin qur'aanku wuxuu oolayaa ilaa iyo qiyaamuu ka soo baxayo. waxyigaasi afkii qaadayay ilaahay u eegay adduunka oo dhan, maaha in nebiga la iska doorto una maka uu leeyahay ka soo qaada maaha. waxaa la doortay nebiga, waxaa la doortay saxaabada, waxaa la doortay meesha, waxaa la doortay luqadda xambaaraysa ilaahay hadalkiisa subxaanahu wa tacaala culayska ay leedahay. markaa sidaa daraaddeed baa la yidhi nebiguna muxuu ahaa sal alla alay slam afsaxu nnaas, muxuu ahaa ka dadka ugu fasiixsan isagoonan iskuul la dhigan gabayna baran. wamaa callamnaahu ashicra shicr loo bari nebiga sal slam wamaa yanbagii lahu umana cuntaba ilahi subxana wa tacaala. marka nebi muxamed sal slam isagoo ashcaar iyo gabayo iyo waxba dhegaysan oona xaafidin oo ka daba tegin ayaa lagu shubay afkii. markaa buu weliba yaqaanay jamiicu lahajaati alcarab, jamiicu afafkii ay carabtu ku hadlaysay oo dhan ee fasiix ahaa iyuu yaqaano. markay wufuuddu u yimaadaan mid walba afkiisu uga jawaabi jiray iyo lahjadiisa, ilaa uu cali ku yidhi yaa rasuul allah waxaan ku arkaya adigoo dadka o dhan u jawaabaya, yaa ku bar afka inta lega. marka xadiiskaasi laa ba'sa bihi culimada qaar dhahaan wuxuu yidhi adabanii rabbii fa axsana ta'diibii, ilaahay baa i tababaray uuna hagaajiyey. ilahay maxaan ku dhaha subxana wa taala maxayga tacliinteydii edabteedina ilahay baa hagaajiyey. marka qof ilahay tababaray subxana wa taala abuha. marka afsaxu nnaas, marka af carabi buu ku hadlaya rasuulku. marka maxaa la rabaa kelmadaha qur'aanka iyo xadiiska in lagu celiyo asalka marka la macnayo afka carabiga. kelmadda waa in afkii carabiga la doonto. halkee ka imata kelmadda asalkeegii lama fahmi karo haddii aan afkii carabiga aan la garanayno. marka sulaama kelimatu sulaama maxay tahay? culimmadu waxay dhahdeen waa jamci, kelmaddani waa jamci, waa jamac. waxay jamac u tahay hal kelmadood oo dhan sulaamiya. mufradkeegu waa maxay? waa sulaamiya, assulaamiya saasay dhaheen. culimmada qaar waxay dhahdeen maya sulaama waa jamcun laa mufrada lahu, waa jamac laakiin ma leh mufrad. asalka mufrad ma leh, saaba loo yaqaana sulaama. اوكي maxay ahayd sulaama tahay garanayo ina kelmad carabiya oo jamc ay tahay sulaama ma mufrad kelmad kaliya u taala maaha waa jamc bay u taala. okay maxay tahay kelmadaas marka la macnayo afka carabiga? culimadu waxay dhahdeen waxay ku macneeyeen ilaa iyo 7 laakiin anaga waxaan ka sheegaynaa 5 un baa inoo muhiim anaka. waxay ku macneeyeen awalan waa asgharu cadmin, sulaamaadu waa asgharu cadmin fi libil, geela lafta ugu yaray ku jirta iyo sulaamaad af carabiga. marka asaas yiraahdeen af carabi ahaantii weeye. qolo kale waxay dhahdeen maysaas maaha waa cidaamul insaani, waa cidaamul insaani wa calaykum asalaam waraxmatulah, waa lafaha basharka, lafaha ilaahay jirkeena dhex dhigay. jirkeena maxaa sida lafaa sida, marka oo hilibku lafuhu dul yaalla. ilahay baa saa yidhi fakasawna alcidaama laxman, fakasawna waan ku asturnay waan hubinnay alcidaama lafihii waxaan hubinnay laxman hilib. marka insaanku waa haykal cadmiya. Soomaaliya markaan